runtii maanta waa maalin farxad ayay ii tahay. waxaa soo gabagaboobay booqashadii aan ku joogay magaalo madaxda ku-meel gaarka ee Jubbaland Kismaayo. safarkan waxa uu ka mid yahay safarada gogol xaarka u ah ee aan ku kala bixinayo dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka oo maanta ugu horeyso Kismaayo, isla maantana ay ku xigto Garbaharey, kadibna aan u sii gudbi doono Baydhabo iyo Baraawe, Jowhar, Beledweyne, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Garoowe, Boosaaso. safarkayga waa safar ku wajahan inaan u kuur galo, soo indhaindheeyo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan, dadka qaabilaya doorashooyinka, shacbi weynaha ku nool magaalooyinka ay doorashooyinka ka dhacayaan, amnigooda ayuu quseeyaa safarkayga. runtii haddaan dib ugu noqdo safarkan aan ku imid magaalada madaxda ku-meel gaarka ee Jubbaland Kismaayo, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne, adiga iyo bulshada Jubbaland, gaar ahaan bulshada ku nool Kismaayo oo si diiran, walaaltinimo, saaxiibtinimo, Soomaalinimo ku dheehan tahay igu soo dhaweeyay magaaladan Kismaayo. halkan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan odayaasha dhaqanka, qaybaha kala duwan ee bulshada, wasiirada iyo xildhibaanadii aan kula kulmay halkan Kismaayo, shirkii golaha wasiirada aan ka qayb qaatay, ururadii haweenka, xildhibaanadii iyo wasiiradii haweenka ee Jubbaland, dhammaantood waan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ay ii siiyeen warbixinta guud iyo midda gaarka ah ee Jubbaland. taas haddaan dib uga gudbo, Jubbaland waa maamul dowlad goboleedkii ugu horreeyay ah haddaan imid safarkayga ku saabsan doorashooyinka iyo habraacooda. Jubbaland waxay mas'uul ka tahay ayna hoosna timaado labada degmo ee Kismaayo iyo Garbaharey oo mas'uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. aan kala xisaabtami doono insha Allah markay dhacayso doorashada. marka madaxweyne, waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland baan u sheegayaa insha Allah inuu Ilaahay kula garab galo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda ku-meel gaarka ee Jubbaland Kismaayo iyo magaalada madaxda Garbaharey gado ee Garbaharey oo aad mas'uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso, anigana ay tahay supervisionkeeda iyo controlkeeda iyo habraaceeda aan mas'uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso, laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doonno insha Allah. waa mahadsantahay madaxweyne, mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh oo aad noo fidisay. shacabka Jubbalandna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin.